xasuus lagaga dayan karo dadka kale ee deegaanka ku dhashayna baad samayseen annagana waxa weeye maanta waxaa wixii qalbigayaga ku jiray oo ducaa baad naga furateen xuduudiye caqliga dhalinyarada oo isku taga ayaa bedelay hirna geliya nolosha taa bedelkeeda dhalinyaro midaysan oo iskood isku xilqaamay oo deegaan ahaan ka soo jeeda degmada Quljeed ee gobolka Awdal oo hami yahan leh ayaa wax qabad muuqda ka hirgeliyay degmada Quljeed iyagoona gaarsiiyay agab caafimaad oo iskugu jira oxygen iyo agabyo kale wax goob joogayaalaha MCH-ka Quljeed oo ay si rasmi ah ugu wareejiyeen dhalinyaradu deeqdani gudoomiyaha degmada Quljeed oo ay weheliyaan culimadiin waxgarad salaadiin aqoonyahan macallimiin iyo haldoorka kala duwan ee degmada wuxuuna isna ku sii wareejiyay bahda caafimaadka ee xarunta MCH-ka Quljeed barbilow waxa halkaasi ka hadlay sharaxaadna ka bixiyay agabkani qaar ka mid ah dhalinyarada waxaad arkaysaa isbitaalada aan joogno ama anu aan ka shaqeeyo ama ragga kale ay ka shaqeeyaan hooyada ayo oxygen loo waayay iyaad arkaysaa oo lagu leeyahay xaafadii geyso oo naqaskii ku dhagan yahay waxna aanad qaban karin dema dhaliila yoorta taageeni baa meesha yaala oo intaas uu taageeni noqday marka annagoo taa ka duulayna waxaynu niri maadaama ay magaalada Quljeed tahay magaaladii ugu dhaweyd Boorama oo ay jirto masaafada 30 kilomitir loona soo socon karo muddo 40 daqiiqo ama 45 daqiiqo haddana qofkii aanan la soo gaarsiin karin siday noqon kartaa xalkiigu adduunyadana waxa laga bartay waa failure ama dib u dhac oo wax laga bartaa marka waxaynu niri bal oxygen aynu ka bilowno dhalaan ha noqdaan dad waaweyn ha noqdaan taa aynu ka bilownaa niri waxaan arkay 3 years ugu dambeeyay 3 case baan halkan soo maray 3 case 2 case oo kamid ah waan la kulmay hal case oo kamidana lama kulmin 2 kamid ah waxay hayeen ciyaal 2 kamid ah ciyaal bay hayeen ciyaalku waan ogsoonahay markay uurkii hooyada ku jiraan oxygen-tii iyo cuntadiiba waxay ka heli karaan maamadii tusaale ahaan hooyadii baa dhalaysa hooyadu de maaha mar walba inay si normal u soo dhasho ilmuhu soo kala baxdo waxa dhici karta inay si normal u soo dhali weydo oo ay madheerti ka soo horeyso madheertiina waxa weeyaan meeshii neefta iyo cuntadiiba ay ilmihii u marayso halkan joognaayna waa halkan waxa in la geeyo la doonayna waa meel 30 kilomitir noo jirta ilmihii hooyadii labadoodu halis bay ku jiraan halis ayay ku jiraan waana soo aragnay taasina waa ta keentay inaynu ka duulno oo aynu nala balinta hadhay oo aynu ka hortagno marka qalab baynu soo qaadnay qalabka alxamdulillah dhalinyar aad u fiican oo walaalaheena ayaa si fiican noogala soo qayb qaatay si fiican wax noogu soo taray qalabkaasi waa qalab isugu jira oxygen laba xabo oxygen iyo qalabkii nasaliskii oo ciyaal iyo isugu jira dad waaweyn iyo sidoo kale bibiyadii la isku cabirayay kii macaanka lagu cabirayay intaasiba way noo yaalaan de qalabka inaynu ilaashano ayaa muhiim inoo ah marka hore qalabka inaynu ilaashano ayaa muhiim inoo ah dhakhtarka waxa ka socda diploma ba ka socda dhismihiisii hadda uu socda qabyo waa ka muuqataa cid kasto oo ka soo qayb qaadanaysa waa u furan tahay kulay dhamaad buu ku dhow yahay haddana lagama way socotaa dadaalku socdaa wax badan buu u baahayo hadda markaan arkay aan jeegareeyay waxaan rajayn lahaa in ma taqaanaay cid kasta oo ka qayb qaadanaysa oo maqashay ay dhakhtarkaasi ka soo qayb qaadato sababta oxygen-ta haydin keenay waxa idinka la idiga fadhiyaa leedkii lagu isticmaalo ama lagu kicin lahaa idinka la idiga fadhiyaa ama tiinka soo saaro shidaal lagu shubo ama kii kalaba hay noo soo kiciyo leed bay u baahan yihiin leedkaas waa laga maarmaan waxbarashaduna waa sektorka labaad oo aanu soo soconaa oo mishinkayga labaad ama fishikayga labaad baa wuxuu yahay bayna qaybta waxbarashada waxaan ka qabanno dadka jooga dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa ee degmadan ka soo jeeda inay u soo jeestaan sidii ay u horumarin lahaayeen degmadoodan waa barbilow fiican weeyaan hadda dhalinyartan ayaa sabaabushay oo keentay bilowgii ugu horeysay laakiin waxaan u jeedinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadan karta in ay degmadu ay yeelato referral hospital intaasi kadib waxa geestooda mikrofoonka ku kala dambeeyay xubno ka mid ah mas'uuliyiinta goobtani ku sugnaa oo baaq u diray cid kasta oo ka soo jeeda degmada Quljeed ee gobolka Awdal waxa weeyaan maanta waa bari bay u tahay degmada waayo waxa weeyaan dadkii wax ka bartay ama aqoonta lahaa ee awal ka tagi jiray oo maanta soo xasuustay degmadu runtii keenana deeq qaybta caafimaadka oo oxygen marka la leeyahay waa nolosha koowaad qofka bini'aadanka
haddii uu qofku saableydu shaqayn sanbabadu istaagaan ama ay shaqayn weydo waxaa dhacaysa inay oksijiinta xidhanto deetana qofkii dhinto si degdeg kadiisa ku dhinto runaantii tani maanta waxay annaka noo tahay farxad waa wax ku dayasho leh horta maanaan eegaynaa degmada Quljeed 17 beelood baa hoos yimaada intaa oo dhan MCS-ka u shaqeeya waa halkan weeyaan waad ogtihiin dhalinyartiinan isxilqaantay waxaad tihiin team halkan ka baxay ama se muxuu ahaa wax ka bartay in aad dib aad ugu soo eegtaan oo meeshii aad ka baxdeen aad u soo eegtaan maanta iyagii oo dadkii waaweynaa ama hantiilayaashii ama dibadaha u baxay midna awna weli dib u soo dayn had inagu halkii ugu darayd iyo halbowlihii aad ka hadashaan ama aad ka keentaan jawaab waa waxa weeye waa mid aan aad iyo aad inagu mahad celinayno magac baan u bixiyo waxaan idhi isxilqaam waa dhalinyaro isxilqaamtay oo deegaankoogii iyo dadkoogii inay wax la qaybsato waciga iyo waayaha adduunyada ka jira ay ugu tala gasho weeyaan waxaan ileenahay kor oo kobcaan ileenahay waxa weeyaan waxaad soo kordhiseen nolol ilmaha marka laga wanqalo uu dhasho waxa la yiraahdaa kor oo kob waxaan idin leenahay kor oo kobca waxa weeyaan waan idin ducaynaynaa waar dadka kalena ama qurba joog ha noqoto ama qolqol joog ha noqoto waxa weeyaan qof waliba waxa loo baahan yahay cidii waxaysa cidii adduunyada ma cidii maskaxaysa cidii haysa adduunyo cidii xoog haysa dhammaan inta la isku tago ama dibadda joogan ama gudaha joogan in inamada lagaga daydo oo wadada iyo dariiqa ay qaadeen la qaado maanta waxaanu soo gaaray qalab aanu aad ugu faraxnay baahi weyna halkan ay u qabtay anagoo shaqaale caafimaadka halkan ka hawlgalayay waanu ognahay hawsha naga haysatay oksijiinta hooyooyin badan caruur yaryar oo markii uu dhalatay oo oksijiinta in minute lagu soo kiciyo u baahnayd ayaanu gaari halkan uga saarnay qaarkoodna aanu gaariba nooga habsaamay ambalaaskoo naga maqan aanu ilaa boorama sii walqinay maanta haddii ilaahayidhaa oo ha keenteen qalabkii oo halkan aan maanta noogu fududaan doonto waxaan idinka mahadnaqaynaa dhallinyaradaasi inaad wax baahi weyn loo qabay aad maanta asiibteen oo ku dayasho mudan aad baanu idinkaga mahadnaqaynaa maad waxaad tidhaahdaa lagow haysgaabin garoocashaa kugu jirtay dhallinyaro haysgaabinina hogaamiyaashii mustaqbalkaati hogaaminta mustaqbalkuna waxay ka bilaabantaa waxtarka bulshada aad baad u mahadsantihiin inaad waxtarkii bulshada maanta aad dareenteen dhibaatada taalla caafimaad iyo halkii aad ka soo jeedeen aad iyo aad baan idigu mahad celinayaa oksijiinta la keenay iyo muxuu ahaa hawsha had wadaana halkaa iyo hal ka badan ayaan idigu sii barbaarinaynaa inaad inta kale ee maqana had soo dhiiri gelisaan idinkuna aad baad ugu mahadsantihiin oksijiintana waxaan leeyahay caafimaadka halkan marka laynoo keeno hadba wixii laynoo keeno dayactirkiisa iyo muxuu ahaa ilaalintiisaba xil weyn iska saara dhalinyarta isa soo xilqaamtay ee garatay wixii waajibka loogu lahaa ee beeshu xaqa ugu lahaydna waa aad baan ugu ducaynaynaa intan iyo ka badanna inaad noo garatiin ood noo soo biirisin hadday masaajid tahay iyo hadday arrin walba tahay wixii dhimanba inaad buuxisiinna aad baan ilaahay idin garansiiyey inigu ducaynaynaa maasha allah tani waanta waa waxqabadkii koobaad ee dhallinyaradii waddanka wax u baratay aad baan ugu mahadnaqaynaa inagana aad baan idinku mahadnaqaynaa ilaahayna idin laban laabo halkaad ka soo bixiseen ilaahay khayr ha inigu bedelo khayr allah inigu bedelo suxufi cishqi degmada Quljeed ee gobolka Awdal